Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaad muuqaalkii labaad aynu ka diyaarinay bilaal bin rabax. وجاءنا رمضان باليمن والإيمان تسمو بنفحته ملائك الرحمن تسمو بنفحته ملائك الرحمن. Waxuu ahaa bilaal mid marwalba ka agdhow nebiga, qasnajigii nebigana wuu ahaa. Waxa uu nebigu ku gaaryeelan jiray bar ka mid ah sirihiisa iyo baahiyihiisa. Ayaamuhu way socdaan, waxaa la galay dagaalkii Uxud, Axsaab, heshiiskii Xudaybiya. Saxaabadii nebigu waxay geedi u galeen sidii loo furan lahaa Maka. Waxaa la furtay Maka, waxaa la burburiyey sanamyadii ay Quraysh caabudi jirtay. Nebigu waxa uu soo galay Maka isaga oo takbiiranaya utana ku dhowaad 10,000 oo ciidan muslimiinta ah. Waxa uu cafiyey nebigu dadkii reer Maka iyadoo la ogaa waxay muslimiinta u geysteen. Wuxuuna ku yidhi idhabuu fa antum dulaqaa, taga maanta waxaad tihiin xor. Waxa uu soo aaday nebigu dhanka Kacbada isagoo oo wata Bilaal, Usaama bin Zayd, Cusmaan bin Dalxa, furaahiyihii Kacbada dhammaantood ka raali noqdeen way ku tukadeen. Kadib nebigu wuxuu amray inuu Bilaal fuulo Kacbada si uu aadimo. Uu fuulay, waxa uu ka agaadimay 10,000 oo qof. Reer Makana way rumaysan laayihiin, waxay arkayaan ma nimankii aad erideen ayaa maanta iyagoo awood leh soo laabtay. wax dhawaaqaya oo dhaqaaqaya ma leh, waxaa la dhegaysanayaa iidaanka macaankiisa. Bilaal waxa uu gaadhay boos aanay cid hortii gaadhin. Waxa uu nebigu jaqabjaqabtiisa ka maqlay jannada. Markuu weydiiyey camalkaad samaysaa muxuu yahay, wuxuu Bilaal yidhi camal sidaa u weyn oo aan sameeyey garan maayo, laakiin markay weysadu ka jabto ee aan weysaysto waxaan tukadaa 2 ragcadood ama inta uu Ilaahay iigu talagalay inaan tukado. Wuxuu yidhi Abubakar, may dhali lahayn Bilaal hooyadii iyo aabihii, anna Bilaal ma noqon lahaa. waxaa dareemaysaa maqaamka uu ku fadhiyo Bilaal. Hadallada laga haya Bilaal waxaa ka mid ah waxa uu maqlay dad ka sarraysiinaya Abubakar. Wuxuu yidhi sidee baan uga fadli badnaan karaa, waxaan ahay wanaag ka mid ah wanaagyadiisa. Kamuusan heli jirin in la ammaano. Hadduu maqlo ammaanna indhaha ayuu hoos u jeedin jiray. Wuxuuna odhan jiray waxaan ahay xabashi, shalay addoon baan ahaa, maantana Ilaahay islaamku iigu gargaaray oo iigu xoreeyey. Waxaa nebiga u yimid reer ka mid ah reerihii degi jiray Madiina. Waxay ku yidhaahdeen u guuri walaasheen. Wuxuu yidhi nebigu Bilaal xaga ka dhaafaysaan. Way ka tageen. Waxay u yimaadeen maalin labaad sidii oo kale ayay ku yidhaaheen nebi allow u guuri walaasheen. Wuxuu nebigu ku yidhi xagaad ka dhaafaysaan Bilaal. Way ka tageen. maalin saddexaad bay yimaadeen. Waxay ku yidhaaheen nebi allow u guuri walaasheen. nebigu sidii oo kale ayuu ku yidhi xageed ka dhaafaysaan Bilaal, xageed ka dhaafaysaan nin ka mid ah ahlu jannada. Way ku raali noqdeen wayna u guuriyeen. waxa uu noloshiisa ku dhamaystay agjoogga nebiga, wuxuuna galay dhammaan dagaaladii iyo duulaamadii nebigu u qaaday. waxaa la gaadhay xilligii nebiga la oofsan lahaa uuna ka tegi lahaa adduunyadan dhammaanaysa, laakiin yuu ka tegayaa saxaabadiisa. nebiga Ilaahay baa oofsaday. waxaa xukunka gadaashi qabtay Abubakar, Allah ka raali noqdee. Bilaal umaysan cuntamin inuu sii joogo Madiina nebiga gadaashii, maxaa yeelay waxay ku reebaysaa xusuus. xitaa uu iska daayey eedaankii wadaami jiray. markuu marinayo ashhadu anna Muxammad rasuulullah, waxaa indhihiisa soo firsan jirtay ooyin. waxaa ku xilmi jiray hadalka. wuxuu u tegay Abubakar, waxa uu idan weydiisanayaa inuu u fasaxo jihaadka. waxaa ku adkaatay Abubakar inuu Bilaal garabkiisa ka tago. waxa uuna damcay inuu u diido. wuxuu yidhi Bilaal, Abubakar haddaad ii xoraysay maalintaad horeynaysay naftaada, waxaad ii amarto ayaan samaynayaa, laakiin haddaad ii xoraysay Ilaahay, ii daa Ilaahay. Abubakar wuu fasaxay. wuxuu tegey Bilaal Shaam, meeshaasuu ku jilba xidhnaa, la dagaalamayay gaalada, kuna sugayey inuu alla shahaada siiyo. waxaa Shaam soo booqday amiirulmu'miniin Cumar bin Khadaab, Allah ka raali noqdee. waxay muslimiintu ka baryeen inuu u weydiiyo Bilaal inuu aadimo hal salaad. wuxuu Cumarna u tegey Bilaal isagoo ka baryaya inuu aadin hal salaad. Bilaal wuxuu fuulay mimbarkii u aadimay. waxa ooyey dhammaan saxaabadii noolaa xilligii nebiga. waxa uu dhintay sanadii 20aad ee hijriga, da'aadan 60 jir. waxa uu ku aasan yahay Dimashq. wuxuu yidhi maalintuu dhimanayay farxaddayde bari baan la kulmayaa Maxamed iyo saaxiibaday, qadan nalqal axibba Maxamedan wa saxba. waxa uu noolaa waqti ama casri aanay jirin isiifka iyo midabta koorku. waxaynu ugu barardeeqaynaa عصائب السلام من الأرض كلها يوحدهم دين ويجمعهم فكر توحدهم في الله أقوى عقيدة ولا نسب غير العقيدة أو سحر فما جمعتهم في الوصول قبيلة وما ضمهم حي ولم يحيهم قدر دعتهم صور العز في كل موطن فضاروا سراعا ما لهم دونها صبر فضاروا سراعا
ما لهم دون ناصر.